Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Muuqaalkan maanta waxaan kusoo gudbinaynaa qaybtii labaad ee ku saabsaneed Man in the Middle Attack. Muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaalo taxane ah oo ku saabsan Man in the Middle Attack. Muuqaalkii koowaad waxaan kusoo sheegnay qayb hordhac ah oo bilow ah oo ku saabsaneyd ARP spoofing anagoo soo isticmaalnay tool lagu magacaabo Ettercap. Haddii aadan daawanin qaybtii koowaad, fadlan soo daawo qaybtaas si aad u fahamto qaybtan. Waxaad ka heli kartaa muuqaalkaas linkiga ka muuqdo qaybta kore ee shaashadda. Muuqaalkan waxaan isticmaali doonaa tools oo ay ka mid yihiin Ettercap oo aan u isticmaali doono noocyo ka mid ah Man in the Middle Attack sida ARP spoofing iyo DNS spoofing. Sidoo kale waxaan isticmaali doonaa tool lagu magacaabo Beef XSS oo isagana ah browser exploitation framework loogu talagalay in injection loogu sameeyo browserada. Waan arki doonaa sida loo isticmaalo Beef iyo Ettercap, laakiin marka hore aan wax yar sharaxno wuxuu yahay farqiga u dhexeeya Ettercap oo aan muuqaalkii hore kusoo aragnay iyo Ettercap oo aan ku arki doono muuqaalkan maanta. Sida aan soo aragnay, Ettercap waxa ay awood u lahayd in ay macluumaad ka dhex capture gareyso ama ay ka dhex qabato browserada isticmaala HTTP oo keliya, oo ma aysan awoodin inay macluumaad ka dhex qabato browserada isticmaalo HTTPS. sidaas daraaddeed maanta browserada intoodii badan waxay isticmaalaan HTTPS maxaa yeelay HTTP secure ma ahan. macluumaadka browserka isticmaalaya HTTP lasoo dhexmarsiiyo waa clear oo waa la arki karaa sida aan soo aragnay, halka browserada isticmaala protocolka HTTPS aan la arki karin macluumaadka lasoo dhexmarsiiyo maadaama uu isticmaalayo protocolka SSL oo ka dhigaya encrypted messageka ama macluumaadka lasoo dhexmarsiiyo browserkaas isticmaalay HTTPS. marka muxuu yahay marka dowrka isticmaalayo Ettercap oo uga duwan yahay Ettercap oo aan kusoo aragnay muuqaalkii hore? Ettercap wuxuu isku dayayaa in uu hoos u dhigo awoodda HTTPS oo browserka isticmaalaya HTTPS uu u bedelo HTTP si ay ugu sahlanaato inuu akhriyo macluumaadka browserkaas maadaama uu noqday HTTP. Haddaba Ettercap wuxuu isku dayayaa in protocolka SSL oo encrypted ka dhigayay browserka in uu ka dulboodo protocolkaas encryption ka sameynayay oo kadibna uu u bedelo HTTP. markaan aan ayadoo practice ah aan aragno sida Ettercap uu isugu dayayo in uu dhex jeexo SSL ama in uu u bedelo browserada isticmaalaya HTTP. aan aragno ayadoo practice ah. marka hore halkan waxaan ku haysanaa computer window oo shidan iyo computerkan Kali Linuxka oo noo noqon doona attackerkii. labadooda waxay ku jiraan same network. marka Kali Linuxka wuxuu noo noqon doonaa computerka uu isticmaalay attackerka, windowgan wuxuu noo noqon doonaa macmiilkii isticmaalayay networkan aan rabno inaan asaga attack ku sameyno. ugu horeyn applicationada aan soo sheegnay Ettercap iyo Beef labadaba ma ahan pre-installed oo kuma shubna Kali Linuxka. marka waa ku shuban kartaa kaliya terminalka qaybta rootka soo gal kadibna apt install Ettercap kaliya dheh, intaas oo kaliya ayuu kaaga baahan yahay. sidoo kale Beef asagana waxaad uga shuban kartaa sidaan si la mid ah oo waxaa kaliya leedahay apt install beef-xss kadibna enter dheh. marka labadan application markaad ku shubato kadib waxaan ku hormaraynaa Ettercap oo aan u isticmaali doono noocyo ka mid ah Man in the Middle Attack. waxaan leenahay Ettercap waxaad u kicin kartaa laba hab, inaad Ettercap kaliya aad dhahdid enter, sidan waa okay waa ku isticmaali kartaa. sidoo kale waxaad ku isticmaali kartaa inaad interfaceka adapterkaaga aad la isticmaashid oo aad dhahdid interfaceka adapterkayga waa ETH0 kadibna aad dhahdid Ettercap-iface kadibna ETH0. marka labadaba waa isticmaali kartaa. okay, clear the screen. Ettercap versionkiisu kusoo muujinaya kadibna wuxuu ku leeyahay waxaa qortaa help si aad u ogaatid dhammaan commandiyada iyo moduleska uu isticmaalo. hadaa help dhahdid waxaa halkan kaaga muuqanayo moduleska uu isticmaalo. moduleskan hadda active ma aha oo ma ahan mid la isticmaalayo marka laga reebo events.stream.
waxaa arkaysaa marka in uu leeyahay modules badan oo la isticmaali karo oo Buttercup ka mid ah. anaga modulada aan isticmaali doono waxaa ka mid ah RB spoof, waxaa kaloo isticmaali doonaa DNS spoof, sidoo kale waxaan isticmaali doonaa HTTP proxy, HTTPS proxy iyo wixii la mid ah. tusaale hadda NetProbe oo kale haddii aad u baahan tahay inaad ogaatid waxa uu qabto waxaa leedahay keliya help space net.probe, markaas wuxuu ku tusinayaa modulkan wuxuu qabto. NetProbe maxaa loogu talagalay in uu hostiyada inuu u diro UDP packet dhammaan systemyada ama IP addresska ku jiro network adiga aad ku jirtid. haddii rabto inaad isticmaashid NetProbe waxaa kaliya leedahay commandigana gelinaysaa NetProbe on uu shidmaya, NetProbe off uu maaragtay xirmaya. kuwaana waa optionska uu leeyahay NetProbe. marka command walba u baahan tahay help ka hormarsiinaysa. hadda waxaan ku bilaabeynaa marka NetProbe oo aan hadafkeenu uu yahay inaan ogaano IP addressyada ku xiriirsan network anaga aan ku xiriirsannahay. aan leenahay NetProbe on, kadib wuxuu bilaabayaa inuu u diro UDP packetkii aan soo aragnay inuu diri doono. then wuxuu qabanayaa device-yada ku xiriirsan network aniga aan ku jiro. haddii marka aan rabno inaan ogaano how many ama imise device ayaa igula jirta networkan, waxaan leeyahay net.show command wuxuu isiinayaa in aan ogaado device-yada igula xiran networkgayga. halka waxaa ku qoran nameka, MAC addresska, IP addresska device-yada aan same network ku wada jirno. anaga targetkeena waa gateway-ga oo wata 223 iyo desktop-ka oo ah macmiilka aan rabno inaan target gareysano. marka labadaas target ayaan leenahay. waxaan rabnaa marka methodka aan isticmaalayno attackan waa ARP poisoning ama ARP spoofing. sida aan soo aragnay halkan waxaa ku jira a lot of modules. hadda waxaan isticmaalaynaa ARP spoof command. marka haddaan dhahno help, haddaan dhahno ARP.spoof wuxuuna tusinayaa sida loo isticmaalo iyo optionska uu leeyahay ARP spoof module. hadda umaanan isticmaalin. haddii aan u baahno marka inaan active ka dhigno commandigan oo keliya ayuu u baahan yahay. optionada aad isticmaali kartid ama parameterska waxaa ka mid ah ARP spoof.full duplex oo loola jeedo in targetka iyo gateway-ga same time uu attack ku sameynayo. sidoo kale internal oo loola jeedo local area network anaga ku jirno dhammaan PC-yada ku jiro ayuu attack ARP spoof ku sameynaya. marka anaga waxaan leenahay waxaan hadda set up gareyneynaa ARP spoofing commandigiisa. waxaan leenahay set ARP.spoof, waxaan leenahay full duplex, waxaan leenahay true. sidoo kale waxaan leenahay set ARP.spoof targets, waxaan leenahay targetkeena waxa waaye computerkii ahaa hadda net.show. targetkeena waxa waaye anaga desktop-kan, maadaama commandigan koowaad aan isticmaalnay ARP spoof full duplex wuxuuna siinayaa in gateway-ga uu noo soo capture gareeyo. marka targetkii weli ma aanan set up gareynin. waxaan leenahay ARP.spoof targets. targetka waxaan ka dhigaynaa computerka desktop-ka wuxuuna u dambeeyo 193. marka haddii aan soo copy gareeyo IP addresskan aan dhaho copy control shift v oo sidaas aan enter ku dhaho, hadda waxaa ii set up gareysan targetkii iyo gateway-gii. haddii aan rabo full duplex inaan iska daayo waxaan isticmaali karaa halka aan targetka ku qoray ayaan waxaan dhihi karaa comma, then waxaan soo qaadanayaa gateway-ga IP addresskiisa. hadda sidan gateway-ga waan ku isticmaalay uma baahni, laakiin si tusaale ahaan ayaan hadda idin tusinayaa. sidaana dhihi kartaa in aad computerka victimka ama targetka IP addresskiisa soo qaadatid, comma dhahdid adoon space dhihin, haddana gateway-ga ku xijisid. sidaana waa dhihi kartaa inaad full duplex isticmaasho oo halka IP address oo aad target gareysanaysid in aad qortidna oo aadan gateway-ga qorinna waa sameyn kartaa. labadaba way ku banaan tahay inaad sameysid. marka hadda saan ARP spoofing targetkeena waa sameynay. waxaa noo dhiman marka hadda waxaa noo dhiman commandigii ka dhigi lahaa HTTPS in uu hoos u dhigo oo u bedelo HTTP. commandigaasna waxaa loo yaqaanaa HTTP proxy. haddaan dhahno help http.proxy waxaa arki doonaa optionska uu leeyahay. optiono badan uu leeyahay isticmaali karno. waxaan isticmaali doonaa hadda commandigana isticmaali doonaa kaasoo disable ka dhigayo SSL encryption. sidoo kale HTTP proxy waxaan ka isticmaali doonaa HTTP proxy.inject javascript. hadhowdii marka aan beef isticmaali doono ayaan u baahan doonaa module-kan, laakiin hadda waxaan isticmaalaynaa HTTP proxy SSL strip. waxaan leenahay set http.proxy SSL strip waxaa ka dhigaysaa true. sidoo kaleete waxaad leedahay HTTPS proxy, labadaba waad ka dhigaysaa true. then now hadda wax walba waa noo diyaarsan yihiin.
inaan active ka dhigno attack oo kaliya naga dhiman iyo inaan http proxy inaan active ka dhigno. marka waxaan leenahay arb.spoof waxaan leenahay on, waxaan leenahay http.proxy on, waxaan leenahay https.proxy on. sidaan hadda attackia noo bilaabmay. marka halkan fiiri, marka arb.spoof on dhahdid wuxuu kuu soo qabanayaa cidda uu arb.spoof ku sameynayo. wuxuu ku leeyahay waa laba target, waa labadan target. commandkii ugu dambeeyay uu qaatay. hadda waxaa ujeedaa website-kan waa website Soomaalida ay wax ka akhristaan. wuxuu qaybta kore kugu muujinayaa in uu isticmaalayo https uu secure yahay. haddii hadda aad fiirisid qaybta qufulka aad klik siisid, wuxuu kuu sheegayaa your connection to the server is encrypted, oo waa secure oo macluumaadkaaga lama arkayo. laakiin marka aan hadda isticmaalno arb.spoofing oo aan gelino commandgii hadda aan soo gelinay oo aan dhahno arb.spoof on oo aan dhahno net.sniff on, markaad dhahdid hadda waxaa ku bilaabanayo in uu bedelo macluumaadkii. waxaa hadda ku dhacayso browserka haddii aan galno clientiga, macluumaadkii halkan ku jira haddaay meeshan wuxuu dhahay oo ahaa encrypted. hadda hadaad klik siiso ku leeyahay website-kan ma ahan encrypted, ma aha isn't encrypted, taasoo ku muujinayso in website-kii https isticmaalayay browserkii inuu u bedelay http. marka dhammaan haddii aad geshid website-yada kale waxaad ku arki doontaa sidaas oo kale. haddii hadda aan Salaam Bank tusaale aan galo, aan dhaho salambank.so, waxaad arkaysaa ayadana in uu ka dhigay unencrypted oo wuxuu leeyahay website-kan encrypted ma aha. tusaale haddii aan ahay macmiil ka mid ah bangiga Salaam Bank, wax walba oo aniga aan meeshan dhex geliyo hadda waa la arki karaa. hadda waxaa tusaale kugu filan halkan imaw wixii macmiilka uu galay, website-yadii macmiilka uu galay oo dhan halkan uu kugu soo muujinaya. wuxuu leeyahay wuxuu galay. hadda kor fiiriso, wax yar kor aado, waxaad arki doontaa macmiilka website-yadii uu galay. halkan waxaa kaaga muuqdo in uu Salaam Bank uu galay. sidoo kale hadaad kor sii aado waxaad arki doontaa website-yadii uu galay qofka macmiilka aan same network ku wada jirno. haddii hadda aan fiirino hadda halkan hoose, xitaa wuxuu soo qabanayaa website-ka aad isticmaalaysid, website-yadii xiriirka ay la leeyihiin ay sii isticmaaleen. halkan haddaan online banking klik siino, isla markii aad klik siisid online banking, halkan wuxuu kugu soo qabanayaa page-kii aad sii gashay. ku leeyahay desktop-ka computerka ah http ayuu codsaday, request waa codsi, kadibna muxuu galay e-banking ayuu galay oo salambank.so. dhammaan halkan marka macluumaadka aad geshid oo dhan wuu soo qabanayaa. hadduu https browser isticmaalayo, xitaa hadduu ahaa let's say marka aan dhahno inuu isticmaalayo gmail.com oo kale, gmail ayuu isticmaalay. halkan hoose haddaa imaadid wuxuu ku soo qabanayaa in uu galay gmail, https inuu galay gmail.com. let's say aan dhahno inuu galay facebook.com. halkan waxaan arkaynaa ayagana inuu facebook.com uu galay ayaan ku arkaynaa. markii aad marka Petercap isticmaalaysid, browser walba oo isticmaalayo https, wax alaala wixii uu macaamilka u dhex marsiiyo wuxuu isku dayayaa Petercap inuu https kaas u bedelo http si uu macluumaadka u capture gareeyo. okay, ma intaasoo kaliya ku eg yahay Petercap? maya, Petercap waxyaabo badan uu qabtaa. waxaa ka mid ah in anagoo Petercap isticmaalayna aan la isticmaalno toolkii kale aan ku soo sheegnay qaybta hore ee muuqaalkeena oo ahaa BEEF ama Browser Exploitation Framework. marka haddii aan labadooda isla isticmaalayno maxaa dhici doona? waxaa dhici doona Petercap in uu noo fududeeyo ama uu sameeyo link ku qasbaya qofka clientiga ah just mar alaala markuu browser wax uu ku qoro oo enter dhaho in uu u xawilo BEEF. isagana BEEF wuxuu leeyahay amaro kale oo noo fududeyn kara in aan clientiga si sahlan macluumaadkiisa ku helno. bal aan aragno BEEF sidoo u shaqeeyo. isagana marka hore waxaan leenahay arb.spoof off, sidoo kale waxaan leenahay net.sniff off. waxaan kicinaynaa BEEF. marka ugu horeysa marka si aan u isticmaalno BEEF kaliya waxaan si root ahaan anagoo u kicinaynaa waxaan leenahay BEEF-xss, kadib waxaad leedahay enter. wuxuu ku leeyahay marka ugu horeyso aad soo geshid waxaad isticmaalaysaa oo ku leeyahay default credentials. marka new password aad gelinaysaa. passwordka hadda BEEF waaye, laakiin waa bedelaysaa, new waa gelinaysaa. marka new password aan gelinaya waxaan leeyahay 123. hadda marka wuxuu ii sameynayaa in uu ii running gareeyo BEEF.
sida halkan kaaga muuqata waxaa hadda uu running gareeyay automatically beef. waxaa loo baahan yahay marka wax yar inaan halkan sharaxno. halkan macluumaadka kaaga muuqda waxay isugu jiraan dhowr macluumaad, laakiin annaga waxaan u baahannahay oo keliya inaan fahamno in aan u baahannahay linkigan keliya. linkigan waa javascript link, wuxuu noo sameynayaa in uu redirection noogu soo sameeyo panelkan halkan ka muuqda. mar allaala markii bettercap oo ARP spoofing sameyno, bettercap waxay noo sahlaysaa in ay userka ama macmiilka markuu computerkiisa oo browser ka kiciyo in halkan loogu soo xawilo, kadibna panelkan beef waxaan ka dhex siin karnaa amaro badan. marka si aad u gasho kaliya waxaad u baahan tahay meeshan IP addresska ku qoran loopback aad ku bedeshid IP addresskaaga. waxaa kaliya leedahay IP addresskeena waa kan midkan u dambeeya 243 kaasaan halkan ku bedeleynaa labada dhibac ka horumarsii 192.168.136.243 kadib waxaa leedahay enter. kadib halkan marka enter ahayd mar labaad oo browserka refresh isku sameynayo, kadib waxaa gelisaa beef usernameka, passwordkan waxaa gelisaa midkaad hadda soo gelisay. then hadda markuu sidaan kuugu soo kici doonaa. saan markuu kuugu soo kaco halkan waxaa ujeedaa online browser oo hadda wax online ma haysano. halkan waxaa kuu soo gali doona browseradii hore adiga u scan gareysay ama aad u capture gareysay oo offline ka ah. marka anaga waxaan sameynaynaa marka waxaan kaliya u baahannahay inaan soo koobi gareyno si aan panelkan loogu soo xawilo browserada macaamiisha ama targetka oo beef oo waa ujeedin browser exploitation framework waaye. waxaa loogu talagalay inuu injection ku sameeyo browserada. marka beef hook uu ku sameynaya browserka, kadibna commands ayaan halkan ka siin karnaa browserka uu isticmaalayo qofka clientiga ah. waxaan kaliya u baahannahay linkigan http ilaa javascript ku qoran tahay inaan soo koobi gareyno. kadib halkaan aan imaanaynaa, kadib waxaan set up gareynaynaa sida normaliga ahaa ARP poisoning. waxaan marka rubineynaa maxaan anaga isticmaaloonaa. waxaan isticmaalnaa netprobe. okay, waxaan leenahay net.show. waxaan haysanaa intaanu target. waxaan sameynaynaa marka inaan set up gareyno ARP spoofing. targetkeenu koowaad waa desktopkan, targetkeeni labaadna waa gatewayga. waxaan leenahay enter. hadda waxaan set up gareynaynaa http proxy, https sida aan horey usoo sameynay. hadda marka waxaan set up gareynaynaa qaybtii noo sameyn lahayd in redirection loogu sameeyo ama loogu soo xawilo browserka uu isticmaalayo macaamilka. waxaan leenahay http.proxy.injection javascript ku sameey. then linkigii aan hadda soo koobi gareynay koobi noo dheh, in waxaan dhahdaa past. halkan marka IP ay ku qoran tahay intaana waxaan ku bedeleynaa IP addresskeena. IP addresskeena waa imisa. waxaan leenahay IP address waa IP addresskan 243. make sure inaa maaragtay wax walba ay saxan yihiin, labadaas dhibic aadan ka tagin. then sidaa markuu yahay waxaa dhahdaa enter. then mar kaleeta haddana waxaa dhahdaa arrow key up. then halkan https kaliya ku dar, enter dheh. now hadda r.spoof on. then waxaa set up gareysaa http. waxaa leedahay http.proxy on https proxy on. then waxaa leedahay net.sniff on. hadda marka waxaa noo dhisan mar allaala markii clientiga ama macmiilka uu browser uu galo in loogu soo xawilo halkan. bal aan fiirin marka aan tijaabino. waxaan galaynaa macmiilka userkiisa. waxaan leenahay waxaad gashaa tusaale casimada.com, enter dhahno. then haddaan galno marka hadda halkan aan fiirino waxa dhacayo. waxaa ujeedaa automatically wuxuu soo qabtay browserkii hadda aan galnay. dhinacan waxaa ka muuqda in uu capturing uu sameynayo wax allaala wixii browserkaas clientiga uu dhex mariyo. halkan kaleetana waxaa nooga muuqda wuxuu beef noo capture gareeyay. haddii hadda halkan aad klik ku siiso IP addresska uu isticmaalayo mashiinka browserka, waxaad arki doontaa macluumaadkan oo dhammaystiran sida wuxuu isticmaalayo, taariikhda, Firefox inuu isticmaalayo, iyo website-ka uu galay, uu booqday, waxyaabo badan oo macluumaad ah inuu Windows 10 isticmaalayo, waxaas oo dhan. laakiin waxaan u baahannahay waxa waaye halkan commands ay ku qoran tahay. haddaad klik siiso waxaan halkan siin karnaa a lot of commands oo ku dhex jiro beef. hadda mid walba haddaad furto, hadda uu xiran yahay markuu sidaan yahay, haddaad klik siiso waxaa ku dhex duugan commands fara badan oo beef awood u leeyahay inuu ku triggereeyo clientiga ama macmiilka browserkiisa. waxyaabaha aan sameyn karno way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaan message alert u dirno oo aan dhahno waa lagu hack gareeyay. haddii aan execute dhahno oo aan imaano browserka clientiga, halkan maxaa ujeedaa waxa usoo garoowayo waa lagu hack gareeyay.
sidoo kale waxyaabaha aan samayn karno waxaa ka mid ah commands badan oo halkan ku jira. tusaale ahaan hadda social engineering haddaan click siino aan furno waxaan arkaynaa in commands badan oo halkan uu ku jiro. tusaale inaan google phishing aan u dirno aan dhahno gmailkaaga iyo passwordkaaga halkan geli. haddii aad hadda execute dhahdo oo aad imaado userka browserka clientiga maxaa ujeedaa halkan in uu google phishing oo kale inuu sameeyo uu leeyahay username iyo passwordkaaga geli. username iyo passwordkiisa hadduu saan hadda uu qofka ku geliyo uu dhaho katib@gmail.com oo passwordkiisana uu geliyo uu dhaho my password is my password, then uu sign in uu dhaho aan fiirino beef, then aan fiirin halkan commandiga waxaan arkaynaa username in la geliyay gmailkan, passwordna in la geliyay password. marka waxyaabo badan uu sameyn karaa beef. dhinacan marka waxaa ka socda capturingkii warbixinadii meelihii oo booqday. dhinacaana waxaa ka socda inaan amaro aan kasii karno beef framework. waxyaabo badan oo sameyn karnaa jiro. waxaa ka mid ah tusaale ahaan pretty phishing, pretty theft haddii aan execute dhahno maxaa dhici doona bala fiiri. halkan maxaa kaaga muuqda hadduu clientiga ama macmiilka uu Facebook isticmaalayay waxaa la dhihi doonaa Facebook accountkaaga waxaa ku dhacay time out, fadlan geli username iyo passwordkaaga geli oo mar kale re-entering ku sameey. waa trick social engineering ah. مثلا waxaan dhahnay katib 101 password aa gelin, waxaan dhahnay password, then waxaan dhahnay username passwordkana geli, login dheh. halkan maxaa dhacay bal eeg. halkan haddaa fiiriso wuxuu sameeyey username katib password. marka halkan waxaa ku jira a lot of commands oo aad isticmaali karno aan ku trigger karno clientiga. saas daraadeed marka dhinacanna waxaa ka socda sniffing oo wixii uu galayay, dhinacan waxaa ka socda inaan commandisku aragtay triggerano. waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanadka mawduuceena maanta. qaybta xigta muuqaalkeena waxaan kusoo qaadan doonaa DNS spoofing, sidoo kale waxaan isticmaali doonaa tools kale fara badan. inta aan muuqaalka xig ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum ورحمة الله.